يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. يا نفس إن لم تظفري. Myself, Aarti. I am a non-Muslim. I'd like to ask a question that, first of all, very thanks for your and giving me this opportunity to listen to you and understand Islam. What I understood from your talk is mainly that it's a religion which believes in peace and harmony and scientific and rational beliefs. If it is so, then how does it believe in the whole idea of God, and how does it believe the whole idea of heaven or the hell, if it's so rational? walaasha su'aal ayayna weydiisay waxay sheegtay inay dhageysatay muxaadarada aadna ay ugu faraxsan tahay maxaa yeelay waxay ogaatay islaamku inuu yahay diin nabad cilmi iyo aqlina ku dhisan su'aal ayayna weydiisay haddii diinta islaamku tahay diin aqli ku dhisan sidee u rumaynaysaa ilaahay janno iyo naarba walaashayda wadada kaliya ee inaad alla rumaydo waxa weeye sayniska haddii aad maanta rabto inaad u sugto qof diin laawa mulxid jiritaanka alle wadada kaliya ugu soo karto waa quraanka oo kaalmeynaya sayniska wadada kaliya ee maanta la helayo waa sayniska xilliga hore mucjisooyinka ayay ahayd kadib waxa yimid casrigii adabka iyo shicirka iyo gabayada quraanku waa mucjisooyinka waa mucjisooyinka dhammaan casriyada iyo zamanada taa sababteeda haddii aad dhageysatay muxaadaradeeda waxaa laga maarmaana inaad si fiican u ogaato inaan halkaa ku sugay in shakhsiga rumaysan sayniska iyo mantiqa uu sugi doono in quraanku yahay hadalkii alle haddii uusan rumaysnayn sayniska aqlina uusan lahayn arrimahaasna uu fahmaynin suurtagal weyn ayaa jira oo sheegaya inuusan quraanka rumaynaynin qofka sababta awgeed waxaan leeyahay cilmiga maanta ma diidayo jiritaanka Allah bal wuxuu diidayaa jiritaanka sanamyada iyo waxyaabaha alle ka soo haray marka loo fiiriyo sayniska iyo mafhuumka rabbi badanaa culimada maanta waxay rumaysan yihiin jiritaanka Allah xilli hore Francis Bacon wuxuu yiri cilmigaaga yar ee dhanka sayniska wuxuu ka yeelayaa qof mulxida oo diin la'aan ah macrifada iyo ogaanshahaada wanaagsan ee dhanka sayniskana waxay ka dhigaysaa qof rumaysan alle hadda aanu nimaano su'aashaada labaad ee ku saabsan jannada iyo naarta haddii aad quraanka si wanaagsan u eegto waxa uu quraanku sayniska ka sheegay waxaan dhihi karnaa 80% waxa quraanku sayniska ka sheegay waxa sugan inuu yahay sax si dhameystiran waxa ku saabsan abuuritaanka koonka qaabka dhulka iftiinka dayaxa wareegga qorraxda iyo waxyaabo nafsad ahaanteeda ku saabsan wareegga biyaha geologiya cilmiga nabaadka iyo geedaha iyo waxyaabo lamida 80% waxa quraanku sayniska ka sheegay waxa sugan inay yihiin sax inta soo hartay macnaha 20% wali way qarsoon tahay saxna maaha qaladna maaha haddaba mantiqayga iyo aqligayga wuxuu leeyahay haddii 80% waxa quraanku sayniska ka sheegay yihiin sax 20% ka soo hartayna aysan ahayn sax ama qalad ma jiro qalad xitaa 1.1 20% kaasi soo haray aqligayga waxa uu leeyahay 20% kaas hartay waxa sugnaan doonta saxiixnimadeeda insha Allah haddaba jannada iyo naarta malaa'ikta iyo jinka ma gaarin horumarka saynisku marxaladaasi wali ma gaarin maanta saynisku waxa uu gaaray marxalad uu ku fahmo 80% kamida aayadaha quraanka oo kaliya taasoo ka sheekeynaysa sayniska berri ama 50 sano kadib 100 sano kadib ama 200 sano kadib saynisku wuxuu ka sheekay doonaa jannada iyo naarta wuxuu kaloo ka sheekay doonaa jinka sidaa darteed aqligayga waxa uu sheegayaa ma ahan i'tiqaad iyo aaminsanaan aan aqli ku dhisnayn aniga i'tiqaadkayga aqliga ku dhisan xitaa 80% ka quraanka kamida ee saxda ah ee aan qaladna ku jirin lamana sugin qalad 1.1 20 kale ee baaqiga ah ma awoodo caalimna maanta inuu dhaho jahannamo ma jirto si cilmiyan ah ma awoodo inuu sugo janno inaysan jirin si cilmi ah ma awoodo maxaa yeelay ma uu garanayo waa ay jirtaa ama ma jirto arintu waa arin qarsoon haddaba aqligaygu wuxuu sheegayaa marka ay 20% kale tahay wax aan la ogeyn oo qarsoon qaladna maaha saxna maaha oo ay noqotay 80% kale waxa quraanku sheegay sax anigu waxaan ahay qof cilmi ahaan u hadlaya si aqliyaysan u hadlaya waxaan leeyahay 20% kale hartay sax ayay noqon doontaa sidoo kale insha Allah sadarteed waxaan rumaysanahay jannada naarta
sidoo kale waxaan rumaysanahay malaa'igta iyo jinka. waxaan rajaynayaa su'aashaada ka jawaabay. I still have some clarification. I need clarification. walaal isla su'aasha miyay ku saabsan tahay? Connected with the same question? Yes, yeah. Actually, you said that science also follows or believes in God, or also Islam do that. Then what is the exact explanation that it has given for God, heaven or hell? walaashayda muxaadaradeedoo dhammaystiran ma dhageysatay? Yeah. ma dhageysatay muxaadaradeeda aan jeediyey isbuucii hore ciwaankeeduna ahaa qur-aanku ma hadalkii Allah? Fine. This is my first. hagaag 15 daqiiqo muxaadaradaas ka mid ah ayaan ku soo celiyey wixii aan ku sheegay 2 saacadood si kooban. waxaan kaa rajaynayaa in qaadato cajalka fiidiyoga ah ee ka kooban muxaadaradeeda. qur-aanku ma yahay hadalkii Alle? waxaan halkaa ku sheegay qur-aanku inuu hadalkii Alle yahay, waxaana ugu sugay dadka diin la'aanta ah ee mulxidiinta jiritaanka Allaha weyn. maanta si kooban ayaan u sheegay, weliba si degdeg ah ayaan u sheegay. sidaas waan sugay jiritaanka Alle inuu waajib yahay. haddii uusan jirin, qur-aankan yaa qoray haddaba? yaa qoray qur-aankan 1400 sano ka hor? yaa qoray? Then who wrote this Quran? yaa qoray? waxaa qoray Allahna abuuray. Allaha weyn ayaa qoray. ma awoodo qofna inuu qoro. maxay dhahdo walaal? What is the explanation for that? tafsiirka arrintaasi waa muxaadaradeeda soconaysa 2 saacadood. waad qaadan kartaa cajalka fiidiyoga ah. waa muxaadaro u eg mid ah oo aan ka jeediyey Bombay 1995. waxaan ka rajaynayaa walaalaha qaar inay gabadha siiyaan nusqo ka mid ah muxaadaradaas, taasoo jeediyey 1995 magaalada Birla Matoshri. muxaadaradaasi qaado, insha Allah wax badan ayaad ka ogaan doontaa arrimaha ku saabsan jiritaanka Allah iyo weliba sugitaanka qur-aanku inuu yahay hadalkii Allah. waxaan rajaynayaa inaan su'aashaada ka jawaabay. walaashayda sidoo kale waxaad qaadan kartaa kitaabka magaciisu yahay Qur-aanka iyo sayniska cusub iyo muxaadarada qur-aanku ma hadalkii Allah. su'aalahaaga jawaabahooda oo idin halkaas ayaad ka heli doontaa ee ku saabsan mawduucan.